Assalaamu calaykum. Qisadan waxay ku dhacday gabar dhigan jirtay kulliyadda sharciga ee jaamacad ku taale mid ka mid ah wadamada Khaliijka. Gabartan waxay lahayd cod aad u qurux badan, isla markaana waxay habeen walba akhrin jirtay Qur'aanka Kariimka ah. Hooyadeed habeenkii marka ay seexanayso waxay istaagi jirtay albaabka qolka gabadha, waxayna dhageysan jirtay codka quruxda badan ee aadka u macaan ee inanteeda ku akhrinaysa Qur'aanka Kariimka. Sidaas ayuuna xaalku ahaa muddo dheer ilaa maalin maalmaha ka mid ah ay ka xanuunsato inantii. Qoyskii ka dhalatay ayaa hospital ula cararay gabartii, halkaas ayayna in muddo ah ku jirtay ilaa uu alle ka ofsaday gabartii. Qoyskii aad ayay u argagaxeen markuu maamulkii hospitalka ku wargeliyay geerida inantooda. laakiin warka geerida inanta wuxuu aad uga uslaa hooyadeed oo aad uga murgootay. Maalintii koowaad ee geerida waxay ku ahayd hooyadeed sanad oo kale, aad ayayna uga murgeysnayd. Markii ay ka tageen dadkii u ta'siyadeynayeen ayay hooyadii waxay kacday kowdii habeenimo ee saqda dhexe dhanka qolkii ay inantu degnayd. Laakiin markay soo gaartay albaabka ayay maqashay codad aad u badan oo aad moodid dad wada oynaya. Hooyadii ayaa naxday, markaas ayay ka joogtay inay qolka horay u gasho. subaxdii ay ku wargelisay qoyskii wixii xalay la kulantay. Habeenkii higay isla waqtigii ay u sheegtay ayay dhammaan qoyska qolkii wada galeen. Misana wax kuma arag, misana habeenkii labaad ay hooyadii isla waqtigii ay aaday qolkii, misana waxay la kulantay isla sidii oo kale oo waxay maqashay oohintii oo kale. Markaas ayay ku wargelisay aabihii inanta dhalay. Kolkaas ayuu ku yiri waxa laga yaabaa inaad u malaysay ee berita ayaan hubsan doonaa. subaxdii markii qolkii la galay mise waxba kuma arkin. Hooyadii waxay jeclayd inay maqasho codkaasi oohinta ah. Waxay arintii u sheegtay saaxiibteeda. Waxay saaxiibteeda ku wargelisay inay arintan u sheegto nin sheekh ah. Wayna ka ogolaatay go'aankii saaxiibteeda oo waxay u aaday nin sheekh ah oo xaafadda aan ka ahaa. Haddaba sheekhii aad ayuu u yaabay markuu maqlay hadalkii hooyada. Sidaas darteed wuxuu hooyadii ka codsaday inuu guriga yimaado xilligii ay hooyada maqasho oohintaasi oo ah waqtigii ay inantu Qur'aanka ay akhrin jirtay. Markii sheekhu uu yimid gurigii ee loo sheegay waxay inantu samayn jirtay ee Qur'aan akhriska ahaa ayaa haddana maqlay sidii ay hooyadii u sii sheegtay. Isla oohintii sheekhii markuu maqlay oohintii ayuu isna ooyay. Markaas ayaa la weydiiyay oo la yiri sheekh maxaa ka oohiyay? Sheekhii ayaa yiri Allahu akbar, Allahu akbar. Malaa'igta habeen kasta markay inanta Qur'aanka akrinaysay way soo degi jireen oo way dhageysan jireen. Laakiin iminka way waayeen codkii inanta iyo Qur'aankii ay akhrin jirtay.